waxaan rabay halkan inaan uga mahad celiyo shaqaalaha hay'adda rayidka Soomaaliyeed dowladda rayidka Soomaaliyeed ee ka soo shaqeynaya Nairobi farxiyo ugu horeyso oo aan muddo aragnay waxaan xasuustaa markii nala soo magacaabay oo 3 warqadood ay noo kala timid aniga iyo ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha saddexdaba laga codsanayo inaan hawada ogolaano in contingency la saaro in intaan diidnay safar aan ugu tagay Nairobi shaqaalaha aan la kulmay shaqaalaha sida goonida aan ula kulmay ay farxiyo ku jirtay Axmed Macalin iyo Sheekh Jaamac iyo dhalinyaro kale oo tiro badan intaana badan waxaan isku raacsaneen in hawada Soomaaliya la soo wareejiyo oo laga maamulo wadanka gudihiisa waxay dad badan aaminsanayeen inayna arintaasi si sahal ah u soo hagaagi karin laakiin bishii June 12keedii 2017 aniga iyo Axmed Macalin waxaan tagnay Montreal ay kaawa ayaan u tagnay waxaan ku soo qancinay inaan hawadeena maamulan karno iyagana waxay rabeen inay nagu qanciyaan in aan hawada kala qaybino laakiin inaga ayaa waxaan ku guuleysanay in aan ku qancinay in hawadeena aan awood u leenahay inaan maamulno waxaa jira dad kale oo injineero oo naga caawiyay runtii plaankii aan wadanay aan Montreal ula tagnay bishii December 28keedii 2017 waxaan halkan xaflad ku qabsanay markii aan dhameystirnay qalabkii la shaqeyn lahaa centerka ku yaalay Nairobi oo dhowr iyo 20 sano noo kireysnaa oo dadkeena ay ka shaqeynayeen bishii March 18keeda 2018 waxaa noo soo wareegay 36 kamid ahaa shaqaalihii markii hore aanan aaminsanayn in xamar loo soo guuray oo xamar u soo guuray oo shaqada halkan ka wada June 18keeda 2018 waxaan si permanent ah joogto ah u soo xirnay xafiiskii Nairobi ee laga maamulayay hawada oo dad badan ay runtii u haysteen inay marnaba aynan arki doonin maalinta la soo xiro Nairobi ee loo soo wareegay xamar alxamdulillah waxaan soo gaarnay guulo isdaba joog ah oo Ilaahay inoo suuro galiyay marka ugu horeysay marka labaadna xukuumadda ay inoo suuro galisay ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha iyo guddiga oo nala shaqeynay iyo shaqaalaha aad arkaysiin halkan fadhiyo runtii bishii July dhamaadkeedii 2019 shaqaalaha u shaqeynay hay'adaas magacyada kala duwan soo yeelatay oo markii hore ay kaawa contract kula jiray dad ajnabi ah ay maamulayeen madaxdoo dhan ay ajnabi ahaayeen ayaa waxay u soo wareegeen inay noqdaan shaqaale Soomaaliyeed dowladda Soomaaliya oo siman bishii August 1 waxaa nagu soo wareegay dakhligii 20 sano ay hay'ad ajnabi aruurinaysay hay'ad kale oo ajnabi ah ay ku wareejinaysay oo naloo maamulay nagu soo wareegay maanta inaga ayaa dakhligiina maamula shaqaalihiina waa shaqaale Soomaaliyeed sanadkan dhexdiisa wuxuu Ilaahay awood inoo siiyay in shaqaalaha technicalka iyo managerada iyo kulli ay noqdaan 100% dad Soomaali ah dhalinyaro Soomaaliyeed sidaad arkayseen rag iyo dumarba waa hay'adda ugu badan ee dumarka ay ka shaqeeyaan sidoo Axmed noo sheegay waana arkayseen shift kasta oo gasho gabdha ayaa ku jira aqoon dheeri ana u leh saadaasha hawada iyo maamulka hawada mudan ra'iisul insha Allah ta'ala sida uu Axmed sheegay waxaan ku howl jirnaa juhdi badanna ku bixinaynaa in bilaha soo socda hadduu Ilaahay ka raali noqdo aan dhameystirno shuruucdii xeer hawsaadyadii noo ogolaanayay in aan siino diyaaradaha pilotyada laysimado airdromiska airportada inaan certifications koona siino insha Allah ta'ala Sheekh Jaamac iyo qolada ayaa ka shaqeynaysa arrintaas taas oo u ahayd inta aan Somali Airlines la bilaabin laga rabay inaan hagaajino Ilaahay ka raali noqdo xildhibaan farxiyo sida ay sheegtay Somali Airlines priority ay noo tahay Ilaahay ka raali noqdo waxaan rajaynaynaa inta aan weli joogno in aan soo celino ayadana Ilaahay ka raali noqdo